Assalaamu calaykum dhammaantiina kuna soo dhawaada channelkayga. Magacaygu waa Warsan, waxaana ahay physiotherapist ama waxaa ku takhasusay daweynta dabiiciga. Waxaan u sameeyey channelkayga si aan u kobciyo wacyiga guud ahaan dadka Soomaaliyeed, gaar ahaanna waalidiinta ee ku saabsan xirfadayda daweynta dabiiciga ah. Insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan rajaynaynaa inaan kaa caawino inaad naftaada caawiso. Ugu horeeyo waa inaan isweydiinaa muxuu yahay daweynta dabiiciga. Daweynta dabiiciga ah waxay qusaysaa aqoonsiga iyo sar u qaadidka tayada nolosha iyo dhaqdhaqaaqa jirka sida uu qabo ururka daweynta dabiiciga ah ee adduunka. Waxaanuna la shaqeynaa bukaanka qaabaha baahiyada kala ah. Marka ugu horeyso orthopedica oo xaaladan waxaa la xiriirtaa xanuunka lafaha, murqaha iyo laabantooyinka. Daweynta qaybta wadnaha iyo sanbabaha. Neurology oo la xiriirta maskaxda iyo neerfaha. Daweynta caruurta, waxaan la shaqeynaa caruurta marka ay dhashaan ilaa ay ka gaaraan 18. Waxaan kaloo ka shaqeynaa rheumatology oo ah takhasuska la xiriirta xaaladaha bararka, iyo geriatricska oo ah qaybta la xiriirta la dagaalanka cudurrada ku badan dadka waayeelka ah. Sidoo kale waxaa ka shaqeynaa caafimaadka haweenka, tusaale ahaan daryeelka kadib dhalmada iyo baahiyada kale. Waxaa kaloo ka shaqeynaa oncology oo ah noocyada kala duwan ee kansarada iyo caafimaadka dadweynaha marka laga hadlo wacyigelinta dadweynaha. Takhasusyada kale oo caafimaadka aan la shaqeyno waxaa ka mid ah dhakhtariinta, kalkaaliyeyaasha umulisooyinka, macallimiinta, nafaqeeyayaasha, xeeldaryeeyaasha cilmiga nafsiga, shaqaalaha jirdhiska iyo wasaaradaha iyo hay-adaha kale ee caafimaadka. Waxaanse inta badan anagoo takhasus ah ka shaqeynaa cisbitaalada, xarumaha daryeelka asaasiga ah, daryeelka caafimaadka guriga oo dad qaar guriga loogu imaado sida waayeelkii dadka gaari karin, cisbitaalada iyo xarumaha shaqada. Sida kalena dad qaar oo ka shaqeeya dugsiyada ama iskoolada waa la arkaa. Ujeedada aan ka leeyahay kanaalkan wuxuu yahay wacyigelinta waxyaabaha ku saabsan daweynta dabiiciga ah oo ku qoran Soomaali iyo Ingiriis si loo gaarsiiyo bulshada Soomaaliyeed iyo cidii kale oo u baahan. 2. In la buuxiyo baahiyaha bulshada ee ka jira oo aan weli wax badan laga qabanin oo ay ka mid tahay dhabar xanuunka, murq xanuunka, xanuunka kale oo camal cudurrada stroke markii dadka kasoo laabtaan ay kasoo baxaan oo kale. 3. In aan abuuro wacyigelin khadka telefoonka ama internetka ka jirto ah si loo caawiyo ama loo gaaro dadka aan soo gaari karin xarumaha caafimaadka si ay u helaan daryeel caafimaad. 4. oo ah in arday rabto inay barato ama sameyso daweynta dabiiciga ah oo caawimaad u baahan in waxbarashada laga caawiyo insha Allah. Oo waxaa isweydiin kartiin hadda waa maxay sababta ay muhiim u tahay ama degdeg u tahay in la arko ama la keeno professionalkan oo ah daweynta dabiiciga ah Soomaaliya. Marka Soomaaliya waxaa way wadan lagu xantay in ay leedahay ilaa 4 bes qof oo ku takhasustay takhasuskan, oona loogu talagalay inay 17 milyan oo dad Soomaaliyeed inay daweeyaan. Waxaa intaa dheer tirada qurbo joogta oo xitaa adag in la ogaado tiradooda. Marka waa muhiim inay helaan dadka daryeel
maxaa daweynta dabiiciga ay u baahan yihiin. Tusaale ahaan waxaa ka qaadan karnaa wiil Cabdulaahi la dhaho oo 5 jir ah. Wuxuu saaran yahay hadda neef mareen markii uu keligiisa si madax banaani ah u neefsan waayo. Wallaahi keligiisa si wax ma u cuni karo oo wuxuu u baahan yahay inuu isticmaalo tuubooyinka quudinta. Cabdulaahi ma u ordi karo sida ciyaalka faciisa, ma u ciyaari karo, mana u hadli karo. Lagana bilaabo da'da 1 sano wuxuu inta badan ku xirnaa sariir. Waxaa jira horumaro gaar ah sida lugaynta gurguurashada ah oo laga rabay in uu da'dan ku gaaro, laakiin caafimaadkiisa dartiis muusan awoodin oo marka wuxuu ka dib dhacay ciyaalka faciis. Cabdulaahi wuxuu ka dhashay qoys Soomaaliyeed oo ku nool waddan galbeed ah. Kaliya ma ahan in isaga iyo waalidka ay ku adag tahay in ay maraan nidaamka daryeelka caafimaadka halka ay ku nool yihiin, laakiin dhibaato kalena waxaa ku hayo fahan la'aanta dadka kale ee bulshadooda. Cabdulaahi waxaa loo kala saari karaa mid ka mid ah kuwa nasiibka leh maadaama uu helo daryeel caafimaad oo ku filan. Caruurta ku sugan xaaladaas oo kale dalkooda hooyo ee Soomaaliya waxay u badan yihiin inay dhintaan ama ay ku noolaadaan nolol ay aad qof ugu tiirsan yihiin kadib marka ay la kulmaan xaaladahan oo kale. Kanaalkayga waxaa ugu talagalay caruurta sida Cabdulaahi oo kale iyo kuwa kale ee Soomaaliya jooga. Anoo ku takhasusay daweynta dabiiciga ah waxaan isku dayaa inaan caawiyo caruurta sida Cabdulaahi oo kale iyo kuwo kaloo badan si ay u soo ceshadaan madax banaanidooda iyo si ay ugu noolaadaan nolol dheeraad ah insha Allah. Marka wacyigaana kaliya caruurta kuma socoto insha Allah. Caruurta waalidkooda la joogo wax barayo, barbaarinayo oo lala hadlaya iyo caruurta kaliya caafimaadkoodana ma ka fakarayno, laakiin bulshada qaybaheeda oo kala duwan sida waayeelka, haweenka, ragga iyo ciyaartoydaba insha Allah waa gaari doonaa. Casharaheena waxaan ku soo qaadan doonaa mowduucyo kala duwan oo ay ka mid yihiin lagana bilaabayo takhasuska gaar ahaan caruurta. Waxaana waaye wax degdeg loogu baahan yahay marka ay timaado waxbarashada ciyaalka markay korayaan, mustaqbalka korniinka niyadda, koritaanka murqaha iyo lafaha caruurta. oo haddana waxaa xoogga saaraynaa isticmaalka ciyaarta sida loo isticmaali karo oo wax loogu bari karo. Waa mas'uuliyadda waalidka in ay doodaan ilmahooda u doodaan oo ay hubiyaan inay caruurtooda heli karaan daweynta loo baahan yihiin. Qaybaha cashar kasta waxaa ku jiri doona sharaxaadii cudurkii, muddada cudurkii aan ka hadlaynaa, sababaha cudurka ku dhaco qofka, calaamadaha cudurka, maareynta jimicsiga jirka, waxyaalaha la tixgeliyo iyo sida loo hubiyo badbaadada ama amniga qofka marka uu sameynayo maareynta. Fadlan haddii aad haysid fariin ama comment aad rabtid inaad igala soo xiriirtid, fadlan commentkana hoos ku qor. oo haddii aad xiriir kala rabtidna Instagram-kayga aada hoos uu ku qoran yahay ama website-kayga insha Allah oo mar dhow la furi doono. Marka wanaag insha Allah ku kala tagnay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Insha Allah mar kale baa isku soo noqon doonaa.